aad baan u salaaminaa dadkana daawanaya marka hore aad iyo aad baan idin salaaminaa aad iyo aad waan ku aftaaxna maxamed ayaan le way kana sameer halkaas aad iyo aad anagoo ah wardoon 20 wardoon 20 ha kusoo dhawaada maanta waxaynu ka hadlaynaa social media forex trade shirkadda magaceedu forex trade lama dhaho forex trade forex dhigeyso forex trade ninka iskala hoo la dhaho maxamed cawaale camal loogi maxamed meedhahin awal wax noocaasa war adigu waa inay yaroo muqdisho u ganacsi tegey horta facebook aniyo waxaan u haystay meel oo reeranu haystay laakiin tuuga waaweyn baa ku nool والله بالله برعة بدينا مغلي سد معاه برعة فيسبوك برعة سوشيال ميديا هذا والس قلم وها والرجل وين بمشي نفرديو إنك عروتي كبير شلون با بسم الله سيدا دوان تضبط كورة أيدين شيء نوحيه تضبط والبوح مركز تاجينا هالمر كوفرين سمين وحكى هذا لنا تضبط كان حسات تضبط كوب بنا وهاي قطب كوب دهرة وتبدأني دقيستان رياكشن يكبحيان توجد صارت أغانينا وحير أسلا رن. أردبان أنت فيديو كان أنت مقالك يعني وح داتا أو لسكسية دقفك وح وجهك إسوها يساني شغلة أو قبنا السويو قفك سود وحوح وحي عبدنا كوحنا أنت معقتاي مركا أديك حب عيد سندي طبعا العقل الصيني أيو ده كان حتى أنا هدام داهر وصاحبك معقت. طبعا هلا كانوا يدقين بريد ودقين هذا هذا قارئ كحشته أطقو قولوا يسأل ليف كسو ودقين كرنا هذا وعو إلى هذا نيو هوش أساجست ليف كأيسو قل إن عنده كم بقوها أنا شن بقول بقوها ده وح ده نيم كوجت إن عنده نكا أنا حاجة كسرعة إستجنا تاسو يليه لكن شن waxaan fahmay tuugo isbaaranayso magacyada mar min aan sheegano oo wax macna ugu ma fadhiyaan laakiin sida maqlaysaan waa qof youtuber sama qofkan ha wada garanaya codkiisa si fiican buu wada garanaya qof imkana daawanayo garanayni ma jiraan malayni $1 waa qof youtuber oo baad ka qaadanaya waliba baad cad ah qofka kale ta u jeedin inuu yahay qof ganacsata laftigiisa codka soo duubay waay niyo 10 nin baa markaa leeyahay $1 waxba ma aha wax rag waaweyn oo la tagma waa runtii $1 ma 10 nin oo la tagay sareeran may wuxuu leeyahay qofkiiba ninkan wuxuu leeyahay daahir calisow ninku sidoo u sheegay isaga afkiisa soo baxay daahir calisow ma aha qof $500 iyo $1 loo tii kara macaliisa ninka lacag weyn oo raacaman isagu markaa waa nacma muxuu qabanayaa markaa hawlaha ku dhameynaya hawlaha adoo يعني شقة أتمد ماشي وثقة هذا وثقة وحال قاعد يقعد ظاهر أبو نظيف شقة أتمد سوما هذه يعني رجل هذا سؤال سوما وحكتير وحقيقة بصو أيوة شقة وحين هذا سيني شيء سوى مركب ما لكن أرمو نكن محمد عوالة أرتو مليونير وسور شيء يسوق حبيت دوس عاش كورد شيء واسده لا تنشر أنت أصل عقل لفتك يستوك كان وحكك هذا يصير فوركست تو لفتركيسه wax soo baartay waana la baaran aan soo fahmay hada rag hada lahaya ama muqaalada ama codku ka duwa isaga ayaga waxa istoo dhahaya tuug muqdisho kala soo goostay lacag 10 milyan gaaris isagina wuxuu iyagu tuug ku sheegay marka yaa tuug dheh waxa horta aniga imika horta waxa tuug ninka horta anu cid haysata ma arkin oo ku dhigan ninkan milyaneer kan yar anu cid ku dhigan wili ma arkin laakiin ninkan cod baa laga dubay nin weyn oo sharaf leh haysanay anigu horta especially anigu isaga ma daawan jirin laakiin mid kale ay dhahaan soo bidaar ninkaas anigu nin weyn haysto mas'uula laakiin cod baa laga duubay rig waaweynaayo sharafta anu haysin sharaf leeyihiin waxa soo baxay meeshii le $1 waxa ma hayo dhageystayaasha daawayaasha horta wax yar u soo koobno muuqaalka waa muuqaal uu duubay qofka milkiilaha qofka ganacsadaha oo weydiisanaya ayaga inuu ka caawiyaan dibadbaxay ayaantan ka socday muqdisho iyo oo dadkii uga cabanayeen in lacagta forex qofka markuu dhigto la dhacayo asaga wuxuu u doontay in uu wax weydiisto inay caawiyaan uu cadeeyo uu social media maadaama ay ka haystaan subscribe badan ama dad daawadayaal badan ay ku xiran yihiin inay dhankaas ka caawiyaan laakiin sheeko ka duwan waaye markii meeshiisa loo wada tagto waa maqlaysaan inuu dhiil tagtay oo 110,000 ka badan hay adiga waxa sugaysa in bilaash lagu sameeyo wax laakiin waxaan islahayn ninka oo soo wacay iyo dadka la wacay sida ay wax u kala wadaanaan islahayn haddii aan wax yar dhegeysan doono ma aqaan horta ma aftaaxo sheegaya bilaashka
haddii adoo imika tuuga iminka waa si iyagu sheegeen waa nin tuuga marka ma nin tuuga la trade gareynayo inay lahaayeen waxaanu kaa dhiginaa saaf waanu kaa dhignaa bulshada isagoo xitaa hadduu tuuga haan lama imika war mahayna inagu moogta hadduu xitaa tuuga haan lama in iyagu ay la trade gareeyaan ay dhahaan 30,000 hebel si hebel kun waxba lamaha iyagu xasaa waxa shaqadoodii shaqo waay iyagu hal laakiin cidimo ogeen ku shaqaystaa imika waxyaalaha dadku la yaabayna anigu xitaa la yaabana waxa ka hadlay aniga ma ogan horta muuqaalka codka marka maqla waaya laakiin aniga horta ninka hadlaayo social media ninka oo codka duubay iyo kan kale oo la hadlaayo si fiican ma waaqaan laakiin qofka kaleeto saddexaad oo lacagta ka badan loo ogolya inuu nin tuug weyn ahaa oo dadka badan wada yaqaan gangster weyn waa tuug dhalin yaa dadka lama yaqaan laakiin ninkan aad milkiilaha ama milyaneerkan wuxuu yahay milyaneerka isku tuntay haddii uu rabo in macnaha in shaqo loo qabto yahay ogolaa waa nin milyaneer way ka go'daa 30,000 waxa laakiin isagu anigu siday ila tahay waa horta ninka waa nin caqli badan oo ma doonayo nin oo yeena gacanaadkaan ka tahay moojiye ma doonayo nin ciyaaraha wax uga baxan yihiin inay ciyaaraha nin maha doonayo wax uga baxan moogta raggii telefoon buu daba qabtay wuxuu yidhi marka hore wuxuu aaminsanaa inay iyagu been ka faafinayaan moogta markii lacagtooda ka waayaan marka wuxuu yidhi hadhow si intay been iga faafin lahaa iga hormarin yani intaan iga hormarin anigu aan sii duubto caddeyn ka sii qaato dena hadhow marka yidhaahdaan ninkan waa saagaysaa sodig lacagta iga beriya sheegtay waa la hoos fadhiyay yaa la aaminaa sheekada cid la aaminaa may laftirkiisa muxuu xaggaas maciin uga biday uusan u tegin tviyada internationalka soomaalida ah uusan dadku u wada caddeyn laftirkiisa muxuu u sameyn uu luqluuqa muxuu kasoo doon laftirkiisa aniga waa asaga ma ka shakisanaa milyaneerka daadiyar ood leedahay muxuu dadka codka u duubay tuug intaadan tuugdhin tuug ku dhahaa mister hasha waxaa ku jira ragga ma ragga soo ha shaqaystaan dadkan dad iswada og waa laakiin ani waxaan qabaa abti macna script qarashkaaga 30,000 waxba ku maahan milyaneer tahay kuma milyaneer laakiin xitaa dad milyaneer tahay 30,000 waa shaqaysatay Soomaaliya suul baa ku soo galaan laakiin inay ragga rag shaqaysanaya ogla wuxuuda wada maxaa shaqa xalaal ma shaqadan waxa asaga waxa lagu keenay maxaa ka ogtahay marka ma isagu ma wuxuu ka keenay laakiin isaga imka kan uu ognaay inuu ka shaqaysanayo Facebook dadka leeyahay dad waxa isiin weydo waa sheekada waa finish beerta ku jirta raggaas ka shaqaysan ragga farmaajo wala ka qaadan ninkan u daayar farmaajo la ka qaadnay wuxuu leeyahay wala haweeney kolay waa wada ogtiina u maleena dadkana way wada ogyihiin laakiin suuq weyn wuxuu ka furan yahay social media qof ka sii caansan yahay oo mararka qaarkood haddii uga baxnaan lahayd waxyaabo yar inuu kula sameeyo wuxuu ku weydiinaa lacag ka badan inaada ka bixi karin mar ganacsiga meesha ka jiro ninka gargaarka soo doontay iyo dadka loo soo doontay inkastoo aanan sii kala caddayn karin oo fakta sax aan haysan haddana waxaa xukumi karnaa codadka aan maqleyno codka qaybtiisa dambe waxaa ku jirta xataa meel ku cadaysanayo uu qofkan dhahayo waraan caadi nootaan qofkii aan rabnaan ka qaadana oo madaxweynuhu ka qaadanayo dad imika commentiga waxaan arkayay dad lahaa caruurta waxaa lagu korin inaga bismillaahi raxmaan nin kaloo caruurtiisu iska dhex joogaa moogtaa reerkiisu geeso ka jira wuuna shaqaysanaya yaa heli kara waxa laakiin waa shaqo waalin wey su-aalaha meesha ii taageen xaaraan ciyaal dhexdooda lagu dhex raadinayo oo dhiil lagu dhex gelayo maqa ciyaalkaas ani xaaraan uma arkaniyo ani waxaa kuu qabanaya shaqo waxan iyo waxaasi ninkan muxuu cod ku duubay la tahay ninkan wuxuu cod ku duubay taa horta meesha su-aal meesha taalo ninkan codka wuxuu u duubay ninkan difaacu ku jira cabsaa haddaad sheegayso oo lahayd si aan loogu hormarin isaan loogu boodin macnaha hadhow macnaha in asaga cod laga duubo oo soo dhiga lagala hormar intuusan asaga soo dhigin muuqaalka ama codkan uusan duubin sax macnaha inuu saa u boqayo markii waxa inuu ogaaday markuu hubsaday inuu wax ka hayo codad fiican uu ka hayo iska soo hormarin lacag waxay idin soo dirmay cod baan ka hayaa taa u badan yahay asaga marka saasoo isku nadiifiyey mise dhihi karna isagu hadda asaga dambiili maahan marka maba horta iyagu imika waxay ku siyaasadda ma ujeedaa meesha ka dagaalamaysa iyagu imika waxay ku dacwoonayaan ninkan mataqaanaa wuxuu iska soo jeedinayaa dad baa ninkan lacag kula moogto oo lacag buu nagala soo baxsaday yaara yaara marka dadkii buu iska soo jeedinayaa bay leeyihiin wuxuu isku soo jeedinayaa dadkii wuxuu ku jeedinayaa inaan anigu tuugana ayuu ku jeedinayaa dadka horta caqliyan haddii loo fiiriyo waa sheeko ganacsi waaye waa tabteeda waaye aniga waxaa aaminsanaha ninka oo maxamed cawaale waxaa aaminsanahay laftirkiisa fara iga xiran ani ma aaminsan si wax u wado iyo meesha wax kasoo doontaan ogeyn laakiin haddii uu rabo laftirkiisa waxyaabaha lagu haysto inuu caddeeyo adduunka waa hal qol isku wada noqda facebook soo fadhiisan karaa uu caddayn karaa mana u baahna moogtahay inuu la marmaro meelo badan hadduu been sheegin waayuu codka u duubay su-aal meesha mee taagan waa codka wuxuu u duubi karaa oo ugu fiican
wuxuu is yiri ama lagaa duubaayo lagaaga hormara marka si aan lagaaga hormar marka aan waxa aaminsan xataa qolooyinka kale tuu la hadla inay codka duubteen imika in rabeen inay ka soo jarjartaan inta uu dhahayo yaa is aaminaya meesha videogan imika kale waa part 2 way moogtahay iyagu waxay leeyihin wax video ma duubayno iyagu waxay doonayaan raggan lacagtooda ninkan inay lacagta intay ka qaadi karaan ka qaadaan deetan meesha isaga tagaa moogta imika videoga labaad schedule flight-kii u dambeeyay maalin branch managerska oo dhan operationalkii ku yaala oo cod duubay ayaan muqdisho ku arkay codkeeni maalintii ay soo wacdeen laakiin adigu kuma saarayo marnaba ku a'uudu billaahi min ash-shaytaan anigu markii aan idinla hadlayay tareen baan saarnaa ma adina xasuusto in kale ma aqaani aniga ninka la yiraahdo Cabdinaasir Ismaaciilow Deniso inta ma maagayo Arjaso inta ma maagayo wallahi oo billahi inta soo wacan baan nusaaciya la hadlaa noloshay qof ma duubin nolosha qof duub marka raggan waxay rag maganaysa waxay caadlan ninka kala hadlay waa Cabdinaasir Ismaaciil oo san hadda sheegay waa niweyn oo group afarta nimanka la soo doontay ninka hadlay kulli waa dad yarar ma waa dad waaweyn meesha waxa ku jira waa nin walba waxa si isu adkeynaa waxa ku jira cabsi ku jirto wuxuu leeyahay wax maaragaya waliba ninkan kale waa nin Cabdinaasir waa anigu ma moodin wallahi billahi been ii sheegi maayo waan yaaba shiina iska nin ma taqaana isagu wax walba ka filo laakiin ninka kale madaxdii dalka la kulmay meelaha iska wareegaysan iyo nin weyn baan haysan mood markuu yiri codka yaan la iga duubin cod ma duuba anigu aan yiri uu leeyahay ninkan waa Fariid kan yar ma taqaana 20 milyan ciyaar kuma soo qaadin wallahi been ii sheegi maayo wallahi billahi ninkaasi doonayeen baad ka qaadaan ka waran raggan wuxuu sameeyay wuxuu taagan yahay Cabdinaasir ma oran lacag si moogto marna lacag afis kuma soo baxaysa laakiin wuxuu leeyahay ma waa lacag hore la soo weydiistay ninkan u soo dhaxeeya Allahu a'lam wuxuu oranayaa lacagta ii soo dirtay oo ku soo lacagta sheegatay oo ku soo diriya lacagta isagu ma oranay moogto marna lacag ma weydiisay uu sheegay sheegsi lacagta sheegtay oo ku soo diriya si uu dadka ugu cadeeyo hadhow daawan doona ninkan lacagta iminka ma weydiinay laakiin uu weydiistay isagu muxuu leeyahay meel lacag Cabdinaasirki meel wuxuu ka leeyahay meel lacag ninka ku weydiistay la soo sheego waa isma dhaanta gibigood kulligood waa isma dhaanta mid walba jiiro ku jira waana caadi moogta markay ganacsiga lagu jiro waa la isdhaca business waa waxaan waa la isdilaa waliba dhaca ku roo caadi waa la isbaada waa la xooga sheekh shaqaysta ragga sax shaqa ana professional ahaan waa professional xirfad baxnay aniga shaqa professional waay ka sheekay adoo reerkaaga la jooga carruurtaada la jooga 10,000 $30,000 oo rabtaa saaxiib Soomaaliga afka ku soo dhacsanaysa laakiin ma tuuganimo hayn because ninkan waxa leeyahay lacagtu soo dhacay iyagu waxay leeyihiin ninka lacagtu soo dhacay ka sii dhacan waxa u diisa hadda ma lacagta maati wala soo mar haduu lacagta soo dhacay oo ogtahay inuu maati ka soo dhacay maatida Muqdisho ka soo dhacay isaanta caana iyo ka soo dhacay hadda ogtahay maxaad sodonka ku weydiisaysa oo sodonka ku isaanta caana leedahay yaa soo wuxuu soo dhacay dhac ama ha dhicin soodiga ma laakiin dadku celi waa saas waa macquul ha adeer ninkan hadduu soo dhacay waa la baada waa laga dhacaa haddii uusa soo dhicin ha soo cadeeyo dadka lacagaha sheeriska waxaan xasuustaa 2 isbuuc ka hor in dadka aad u banaan baxayeen haddii uu dadka uu nadiif u yahay uu dadku cadeeyo war cad waay haddii sahan soo ma muu maleyna hadda kule kooxda uu gargaar ka soo doonto war hadda isugu madhin filin waa fashil rag dad badan buu baro anigu ka hayo raggan waa wax dambaan ka aaminayaa soo warka dadku waxay ku dhahaan hadda war la sii weydo waanu intay muuqaal ka duubtaan hadii doonaan who knows ani waxaan xasuustaa xamar aan ka shaqeyn jiray waxaan xasuustaa wariyaasha waxay sameyn jireen lacag waxaa jirtay leeyahay sharuur loo bixiyo sharuurta marka waxaa la lahaa ma qaab Soomaali kale terminology Soomaali kalma laakiin sharuur waxaa waaye warki maanta wariyihii uu duubay haddii aan lacag lagu siin wariyaha uu tuuraa warkaas uu dilgreyna uu dilgreyna ma baahno marka waa war la yaqaan marka waxa fiirsaa ninka dambe uu wacayo kale oo wax ka weydiina waxa ku jiro waa nin lagu yaqaan sharuurtaas sharuurta marka wariyaasha uu yaqaan inta badan wariyaasha xamar joogan hada uu yaqaan waa qayb ka mid sharuurta ana aaminsanatan waa sharuurtii oo la ilbaxday xogaa weynaata mooyee ninka anigu waxaan aaminsanaa inuu ogaa in xagga social media laga soo weerarayo marka uu yiri yaa ka soo weerarka social media hebel iyo hebel la hadal hebel iyo hebel afka u fur كلاني كان عادي ما هي كذا ما هي لا تنو بيش ما هيسو دو معناه فكرتها كاني انه واحد دوبو او وحي سو سي هيستو لا تنكمل عياركم كان معناه marka waxay tahay Soomaali oo dhan marka loo fiiriyo Soomaali min cirif ila qayb dambe tuuganimada waa iska caadi marka ma hadii tuuganimada ragan anu tuug baan marka wadka lacag taalo laayb
maxaa loo dhahaa marka fakriga waddanka jiri maxaa loo dhahaa marka fakri ma jiri waddanka asaga wax la sii weydiisanaya 30,000 qof Yurub joogta wuxuu sii weydiinaa qof xagga joogta lacaga taaji soo dhiga iminka rag qaar xawaaladii magacyada lagu magacdaro leeyahay xawaalada may waxaa u malaysa marka haddii aadan ku xoog lahayn social media inuu xiro laga abuuri karo mister oo ja anaga xataa laftirkeen hadda commentiga inta la qaato la dhihi karo haddaa saas sameyn wax kale idinka hayna camal jin nuju laakiin imika ninkan cidna ma baxna imika waa milyaneer social media waa la bartay asagoo dadka cabeeyay asagoo dadka magaal isaga video ku qaadanaysa 300,000 iyo raggeed ruuxina holiin iska wata wixii iska laaqay meesha ku dambeeyay weegina bariiskuna iska ciideen meesha ku dambeeyay weegina laakiin waxaan rabnaa waqti in Soomaalidu wax ka barato waxyaabahaas oo dhan macnaheedu maaha qof markuu social media mar walba soo fadhiisana ama wuxuu rabo ku sheegay ama kula hadlay macnaheedu maaha qofkaas inuu yahay qof nadiif ah oo daahir ah maaha macnaheedu maaha oo maxaa la war xaqiiqi inaad ka heli kartid macnaheedu maaha waxaas oo dhan marka meel wararka xaqiiqda laga helaa jirto warka saxdiisa laga helaa jirto qof walba waxaan qabaa ka raadiyo meelaha saxda yaanan lagu dambaabin social media beriga ruuxa meelan u shukaan tagno hablaha kala hadalno imika laakiin waxay noqotay isu bedeshay dukaan ganacsi isu bedeshay ganacsi ma intaana soo dhameyn intaana qodobkan dhameyn mu malaysa marka social media Soomaalida inay si qaldan u isticmaasho laftiga qodobkaas maran ka hadli doonaa meeshaas social media ha shukaansi dharreg waa isu bedelay habiba lacag loo diray dharreg hoos buu socday raggii waa imika baad iska qaadaya waqtigaas aadii ani saaqay ani mu malayna si qaldan loo isticmaalay mar waqtiga soo dhaqdaa loo dhaqaya isbaaro ma dhaha waa isbaaro Facebook inta laga soo qaaday markii wadooyinkii la hagaajiyay dadkii laga qaaday isbaaro haysan jiray raggii isbaarada meelaha dhiga jiray way soo guureen Facebook ay yimaadeen bartii waa isbaaro ka dhigtay isbaaro sharciyeysantaa ariyaan isu dambaabin qodobka waa soo dhameynayna maxaan kaloo dhigi karnaa ma aqaani ani waxa la wixii iska wata ganacsigiisa ka wata anagu tuugamani baarnaa ma anaga tuugamani laakiin dhac iyo waxa ayaan iska daayay siro joogdigan hoos loo heshiisay hal masiinana daawadayaasha dhegeystayaasha wax xal ah wax u sheegilan wani qof walba ha oranna ninkan waa mas'uul nin dadkan aad cimaamadaysa iska cimaamadaysan joojiye qof walba iska cimaamadina been ma inkastoo anaga isku waafaqsanahay xalla Soomaalida la dhaho qabiil iyo qaab noocaas la isugu dhawaado marka qofka qabiilkiisa markuu yahay waa kaas loo ixtiraamo ma ku sii daaheeno waa kulay Allahu dibdaamo way salaamina caafimaad idin rajayna toddobaadka dambe assalaamu calaykum